lahaa baa laga wada hadlay wixii loo baahan yahay deynta in la cafiyo ayaa laga wada hadlay wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sharaxay wadada loo marayo in ugu dambeyn Soomaaliya laga cafiyo deymaha iyo cid deymaha ku leh wasiir Beyle oo u warramay warbaahinta ayaa sheegay in haatan ay meel gabagaba ah marayso deyn cafinta Soomaaliya shirkani wuxuu shir gaar ah saad u sheegteen wuxuu bilaabmay 8 waxa lagaga wada hadlay waxa weeye sidii deynta Soomaaliya looga cafin lahaa iyo shirkan soo socday weyn oo maanta dhamaad noqon doona hadii la yiraahdo maalinta dhamaadkeeda wixii lagaga wada hadli lahaa baa laga wada hadlay wixii loo baahan yahay deynta in la cafiyo ayaa laga wada hadlay xagga yaga halkan taaganahay meeshan marayno ayaa laga wada hadlay xagga dawladaha iyo dadka deynta inagu leh iyaguna waxay ka hadleen ama dawladaha noqdaan ama ha noqdaan beesha caalamka kale waxa iyaguna ka hadleen sida ugu diyaar garoobayaan in Soomaalida deynta laga cafiyo iyo wixii deynta cafinta dabadeed imanaya ayaa laga wada hadlay runtii waxa weeyaan shir yar oo kooban buu ahaa oo dadka ay khusayso oo kaliya ka soo qayb galeen wasiirka ayaa tilmaamay in hadda wixii ka dambeeya ay madaxda saddexda bangi yeelan doonaan shirar gaar ah oo ay kaga hadlayaan sidii Soomaaliya deynta looga cafin lahaa wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya ayaa daboolka ka qaaday in 27ka bishan ay magaalada Washington ee dalka Mareykanka kula kulmi doonaan madaxda bangiga adduunka oo halkaasi ku soo kala saxeexan doonaan heshiis ku saabsan deyn cafinta Soomaaliya wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa bogaadiyay hadalkii shalay ka soo yeeray bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka ee IMF ee ku aadanaa in Soomaaliya ay mudan tahay in laga cafiyo deymaha faraha badan ee lagu leeyahay dhanka kale wararka laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxay sheegayaan in dawladda Soomaaliya ay ciidamo fara badan dhigtay wadooyinka magaaladaas isla markaana ay hakiyeen dhaqdhaqaaqa dadweynaha ciidamada oo isugu jira boolis iyo nabad sugidda ayaa waxa la dhigay wadooyinka ugu muhiimsan iyaga oo dadka amray inay dib guryahooda ugu laabtaan mid ka mid ah dadka ku nool Dhuusamareeb ayaa sheegay in arrintan ay ka dambeysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in taageerayaasha ururka Al-Sunna in ay doonayaan inay bax ka dhigaan magaalada Dhuusamareeb wuxuu sidoo kale sheegay in hakita dhaqdhaqaaqa dadweynaha ee ciidamada ay saameyn ku yeelatay isku socodka ganacsiga ee magaalada Dhuusamareeb ciidamada faraha badan oo maanta ay dawladda Soomaaliya dhoobtay wadooyinka waaweyn ee magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli ay xalay hogaamiyaha Al-Sunna Macalin Maxamuud uu sheegay in xilliga wixii ka dambeeyay ay hubka la soo baxayaan dhanka kale wararka hadda la soo gaaray ayaa waxay sheegayaan kulanka baarlamaanka wadamada ku bohoobay jaamacadda Carabta oo shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar ayaa laga soo saaray bayaan lagu taageerayo dawladaha Soomaaliya iyo Suuriya bayaanka lagu taageerayo Soomaaliya oo gundhig u ah marka dhinacyada badan leh ay dawladda federaalka Soomaaliya sameysay ayaa markale lagu cadeeyay in jaamacadda Carabtu difaacayso qaranimada iyo midnimada Soomaaliya waxaana lagu cambaareeyay faragelinta shisheeye ururka jaamacadda Carabta ayaa hore u taageeray horumarada ay sameysay dawladda Soomaaliya iyadoo ka hortimi faragelinta banaanka kaga imanaya taas oo dhaawac ku ah qaranimada Soomaaliya